واتهاي jacaylka sideed isku tihiin jacaylku geel laba jir soo wada maraade aad iyo aad dee waxaan u malaynayaa qof yiraahda anigu waxba ma soo jeclaan yaa dee nolosha raaxo qayb badan oo wanaagsan baa daadeer ka maqan aad iyo aad marka anigu laba xaas baan leeyahay xaqiiqdii xaaskaygii hore jacayl dheer baan dhex maray dhalinyarada baan markaa ahaa aad baan isu jeclaanay dabadeedna waa la hooyadeed baa ii diiday laba qof oo dhalinyarada baan iska ahayno dee aan duruufuna adeegyano inaan guursado may jeclayn sodohday oo qof aad u qiimo badan ah dabadeedna arrintaasi diidmadaa qoyskaygaga timi xamaasadii jacaylka bay igu kordhisay yaa walkii lagu oran jiray qaraamigii ruuxaad jeceshoo jirkaaxigu yaa ilaa indha sooma jiitaan midhaha si fiican baan u hayaa kuma luuqayn aqaano yaa isku ruuxooda ma aqaano laakiin midhaha waa aqaan marka muxuu ahaa sidii baxrasaaf ku yaala bustaan ayaad hadba ii bidhaantaa yaa waa heesihii aadka u qiimaha badnaa xilligaas ayaa gabadha xaaskayga waalidkeedna hooyadeedna may jeclayn inaan isguursano maalintii dambaan raggii qoyskooda ahaa ayaan meel ugu tegey ninka yar wax ka dhiiran maqaaxi baan ugu tegey magacyadoodii baan haystay iyadu isiisay waxaan ku ninka caynkaasaan ahay iyaduna waxay ku tiri ninkaasaan isdoonayna marka gabadhu xaaskaygu aagoon bay daabeed uu dhintay ilaahay u naxariisto laba nin ayaanu ilmaadii ruma yihiin nimankii baa yaabay dhiiranaanteeda war gabadh baan idinka doonaya caynkaas wariya mayna xaash cabdaatahaa dee faamil caana baanu hayno reer magaalo markaas inaan walaalkaa xaguu jooga ismaaciil caynabo baan ku yidhi soo kaxayso maalintaa noo kaale walaalkii baan caynabo ugu tigi walaalkii baan ku yidhi gabadh baan doonaya caynkaasoo walaalkii baa igu yidhi wariyaa waa ninka war tale ma haysidii iska daa gabadhan xilligaasina waa xilli adag oo dareen siyaasiyina uu jiro walaalkay wuxuu yidhi war adeer war iska daa gabadh maanta muxuu ahaayey kuma habboona inaad guursato yaa kugula talin maayo anugu kugulama socdo markii dambe aan ku yidhi waryaa waa ninka anigu walaalkay baan ku moodayey annagu aagoon baanu ahayn bahyar baanu ahayn oo aagoon ku soo kortay aabbahay wuu dhintay halkii aabbahay ma ii buuxinaysaa magacaagaa la igu xidhaye waxba xoolana kaama rabee may raacayso may damiinul weji ii noqo haddii kale halkaasaa maanta isugu keen dambaysa ilaa xamaasadii jacaylka ay haysee taladiisiina waan garifo wuxuu abtigaa baan kuu weydiinayaa gabadho waar abtigay anuu abti ii yahay anaa inankayga abti u samaysanaye talada miyaad tale war maadaa talaadba naagahaaga kala tishan jiray toddobaad guursatay si geesinimo leh wiil yar baan hayoo 20 jira qiyaas dooda way soo raacay galabtii baanu gurigii nimi kadinkii markuu ka soo geliyay ayay sodohday kadinka ku qabatay waray ayna xaashim yaa tahaa warinankii naayar iga qabso yaa inankii naayar iga qabso waa ka markii aan soo fadhiisanay labadii nin iyo anigii walaalkii nin kale ayaa la yidhi ayaa baan hadalkii furay waxaan yidhi waa inagii ballanay walaalkay waa kan ismaaciil xaashi waan wataa dee hadalkii uu inoo bilaabmaya ducadii wixii baanu akhriyay ismaaciil baa marka hadalkii nimanka hadla xil dee ismaaciil oo warra walaalkay midii buu dhabarkayga ka dhiftay wuxuu yidhi ila waa nin markii horena walaacsanaa markii dambena xaajiyadii halkan ka heshay oo abhiisay wuxuu yidhi walaalkay mas-uuliyadda gabadhan ma qaadi karo yaa walaalkii maxamuud waa wiil yar xilligaasuu dhashay maantana waxbarasho dabadeed baanu uga fikeraynaa waa aagoon
reer magaala baanu ahayn maanta waqtigaan nahaya waxba ma haysano mas-uuliyaddana ma qaadi karo markaa niman yahow anigu ku talin maayo maxamuudin gabadhaa la siiyo waa ninkii ila socday adduunyada ilaah waan fakeray intii hadalka waday baa dhidid iga soo baxay ma dudaa ma cadhootaa ma ka kacdaa meesha maskaxdayda way ku soo dhacday walaalkaa ma maagtaa way igu soo dhacday markaasaa maskaxdaydii waxay igu tiri ha cadhoon ha dudin si fiican dood dabadeedna markuu hadalkii dhameeyey baanu baxay hadalkii aan walaalkay wuu mahadsan yahay kumaanu wada socon inuu gabadhan ila doonto walaalkay waan isku khilaafnay guurka iska daabay guuri gabadhaa aan lagu ogolayn aniguna waxaan ku idhi dee muxuu ahaayey waan ku khilaafay walaalkay waxaan uu u soo kaxaystay inuu ka markhaati kaco inaan ina xaashi cabdi ahay walaalkay wuxuu iila socdaa damiinul weji ee arrinta igulama socdo waxba ha la yaabina waanu isa soo khilaafnay walaalkay ninka jacaylku hayay gabadhi doonaya waa aniga maaha walaalkay gabadha ninka mas-uulka ka noqonayana waa aniga walaalkay haddaad odhan lahaydeen muxuu walaalkiisoo ka weyn taladiisa u diidayaa taana waan ka jawaabay xeer baanu nahay reer xaashi cabdi haddaanu nahay dumarka iskalama talino walaalkayba 7 in ku dhow buu guursado midna cid kalama tashan marka taasaa noo xeera nimankii baa yaabay deedna waxay yidhahdeen dee mar haddii annaga ninkani gabadha nimayow ama gabadha ii badheedho waxa tahay ma geydid ama gabadha igu dara yaa nin baa hadlay geesi ahaayoo wuxuu yidhi war annagu dee haddii nin gayaankeeda inanta waa tahay hooyadeedna waa ognay inay diidan tahay walaalkaana waa aragnaa dee bal arrintii maxamuudow dib isugu noqo oo islaantii sidaad isaga furfuri lahayd falowgeeda gal annagu inantii waanu ku siinaynahay horta jacaylku waa markuu ugu caqabada badan yahay marka uu muxuu ahaayey kugu dheeraado geedi socodkiisu aad iyo aad ha xaaskaygii labaad geedi socodkeedu iguma dheeraan yaa waxa weeye dee jacaylkuna waa wax jira dadka qaar baa laga yaabaa inay aaminaan inuu jacaylku sifa qaldan ka aaminsan yihiin amaba inaanu jirin waa waxa ilaahay subxaanahu watacaala baa tilmaamay inuu inoo abuuray labiya dhadig naxariis iyo jacaylana dhex dhigay marka dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa hortiisa jacaylka lagaga gebiyey oo aanu durin nin la odhan jiray kacb ibnu zuhayr oo aabihii zuhayr ibnu abu salma la odhan jiray oo nin gabayadii mucallaqaadka sabca mucallaqaadka ku jiray kacab baa nebiga u yimi oo weliba nebigu markii hore yidhi ha la dilo intuu nebiga usoo gabay ku caayey intuu u yimi buu markaa gabay ku bilaabay uu nebiga markaa ku ammaanayo gabaygaa wuxuu ka bilaabay gabadh u jeclaa cadada carabtuna dumarka waa ammaani jireen gabayadooda aad bay ugu jirtaa inagu waynu ka khajili jiray Soomaalideenu jacaylka waynu qarsan jiray aad iyo aad laakiin carabtu ilaa casru jaahiligi way ku faan jireen oo iminka Antar ibn Shiddad gabay kastoo uu tiriyo waxa ku jira muxuu ahaayey jacaylkii isagoo dagaalka ku jira yaa muxuu ahaayey buu tirinayay markaasuu wuxuu ku bilaabay gabadhiisii macshuuqadiisii ayuu xusay gabadhaas jeclaa burda baa la yaa gabayga waa qasiidadii nebi ammaanka baanat sucaadu فقلبي اليوم مطبول متيم إثرها لم يفت مقبول وما سعاد غداة البين إلا غداة البين إذ رحلوا وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا قضيض الظرف مكحول هل كاسو قبل بو أمانة سعاد ويتكتي قلبي يقول أمانته وقسنيهي محوها إلا أمانة هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول
gabadhaasi markay soo socoto waa boglaalan tahay markay sii socotana yaa baridana waa u weyn tahay gaabni iyo dheeraan midna ceeb kuma leh halkaasuu nebi maxamed buu ka arkaya waxaa nebi maxamed wuxuu u siibay koodhkiisii burdaha waxa loogu bixiyey jaakeedkiisii buu siiyey u gashaday oo qiimo weyn ku fadhiyay markaa burdaa la yaa qasiidada qasiido kastoo nebi amaana burdaa markii dambe loo bixiyey kuwii busayri iyo axmed shawqi iyo ay tirin jireen marka horta jacaylku waa xaqiiqa jirta waxa weeye waana inuu xikmadna ku salaysnaada marka dee wuu isoo maray adeer waan sharax badan baan ka bixiyey wuu isoo marayoo muxuu ahaayey tabaalo badan buu igu keenay laakiin aakhirkii waan ku guulaystay runtii muxuu ahaayey cid kale oo hadda aan dee jeclaadayna oo aan idhaahdo jacaylkaasaa guuldarraystana ima soo marin aad baad umahadsantahay waa tahay adeer